waxaa ka codsanayaa muuqaalkani asxaabtaada inaad gaarsiisid. waxaa raba wax muhiim inaa uga hadlo. Horta, number one, dadka siday suuqa lacag uga samayn karaan. Labo, iyo suuqa shaxdiisa kala duwan. Horta BTC waxaan rajeyneynaa isbuucana inay dhaafto Amazon ay tagto kaalinta shanaad. Taasaan rajeyneynaa. Kow, horta waxaa lacag ka samayn kartaa new cryptocurrency-da cusub oo dhan way dhaqaaqaan. lacagaa ka samayn kartaa kulligood intaasoo percentage dhaqaaqaan. laakiin shuruud waa inaad taqaanaa blockchainada ay ku dhisan tahay. aad ku iibsan kartaa wallet ahaan, because badanaa lagama helo exchange-yada. casharo badanna waa ka sameeyey. Please telegramkii hala follow gareeyo, muuqaalkan waa idiin soo gelinaya. Labo, new coinska coin marketka baa ka raadsan kartaa ama coin getco, labadaba kii ku fudud. laakiin mar walba waxaa muhiim ku ah blockchainka ay ku dhisan tahay waa inaad taqaanaa ama Solano ama BNB ama maxaa dhahaa Base ama XRP ama alaala meesha ku dhisan tahay coinka waa inaad ka iibsan kartaa. So marka intaas lacag waa kaga samayn kartaa. Waxaa kaloo lacag ka samayn kartaa meme coinyada. Dadka meme coin waxay u maleeyaan meme coinyada active-ka Axiom yaalo oo live trade-ka aad ku khasaaraysid ama rug pull kuu noqonayo. Axiom hadda ardayda inta ugu badan waan baray, gruupka ardayda kulli way ka warqabaan. muuqaalkan Soomaali weyn aan ugu talagalay, ardayda dhan way ka warqabaan. casharo badan aan ugu sameeyey. laakiini kuwaani waa risk waay. laakiin saasay tahay, waxaa jira wax loo wallet tracking iyo Twitter tracking. Trackingka haddaa tago, badanaa qofka Twittero badan iyo waladyo badan hadduu haysto, riskigiis wuu yaraanayaa. laakiin waxaa jiro coinan badan oo dexiga yaalo, dex scannerka, oo dhaqaaq sameeyey oo riskigooda uu yaryahay. hadda coinkan kale way soo yara daadatay maanta le waa duhurkii hadaaya xiisada markaa bixina ardayda. By the way guys, habeen walbaba Monday through Friday 9 fiidnimo xilliga Soomaaliya 1 duhurnimo casharada waan bixiyaa imow. Please yaa lagu weyn hadda arday tahay. ardayda way ka warqabaan 9 pm habeen walbaba casharada waan qaadanaa. So marka xilliga casharada agareen oo kale coinan oo waxaa helaysaa dexiga dhaqaaq yar sameynayo 1x 2x. hadda coinkan oo kale 11x 12x samays qasamaan 12x inaad ka samaysid dhaqaaqaas yaraa ka faa'iidaysan kartaa oo markaas dhaqaaqayo. 1x 2x is enough. boqolaal lacagaa jirto maalin walba dhaqaaqo. May 7 waa kana hadda May 8 waaye, laakiin iska dhaaf because aniga xilli dambe ii tahay, waxay ii tahay labada habeenimo. coino badan arkaysaa maanta dhaqaaq sameey. fiiri waa kana another coin oo dexiga yaalo. qasamaa min coinada cusub inaad ka qaraabatid. fiiri 3x almost lacagtaas waxay ku dhawaatay 4xy. coinakan dexiga yaala ka qaraaban kartaa. waa maanta keliya coinka intuu dhaqaaqay. oo fiiri tanada ka badan dexiga boqolaal coinna yaalo. like tusaalayaal waa usoo qaadan karaa coinaka ugu dhaqaaqa badnaa dexiga. marka qasamaa min coinada cusub inaad ka taragaraysid. marka meme coin keliya ha u malaynin kuwa aad ku khasaaraysid oo Axiom-ka yaalo ama bum.fan ma ahan. meelaha kale lacagta ka samayn kartaa idila wadaaga. Poly market oo kale hadda fiiri, Poly market lacagaa laga sameeyaa. biri hadda challenge-gan biri oo dhamaanaya Ethereum Bitcoin ku saabsan. There is another maxaan dhahdaa challenge Ethereum ku saabsan oo ah taariikh 9 kor mu ahaana mase hoos, ama qiimaha Ethereum uu gaari karo taariikh 9 whatever. People are making money. Poly market dad badan baa lacag ka sameynayo thousands of money. Ethereum sidoo kaleeto waxaan ku dhahaa Solana sidoo kale saadaalinayo 9 bisha ma kor bay aadaysaa ma abba mise downba whatever ku turtidoo kale you making money. Poly market waxaa kaloo the Fed hadda June oo kale hadduu ilaahna gaarsiiyo July oo kale. yacni Poly market waxyaaba badan laga fiiriyaa, waqtiga gelin karta. even xataa Elon Musk twitteradiisa people are making money. waxaa kaloo lacag laga sameynayaa mimkooyadii kala duwanaa dexiga yeelay. boqolaal lacagaad tusaale kusoo qaadi karaa maanta keliya. fiir hadda coinkan maanta soo baxday duhurkii hadaaye waa ujeedaa dhankan imahow waa meyda hadaaye duhurkii markay ahayd 13, yacni waa duhurkii 1:00 markay ahayd. imisay dhaqaaqday almost 7x ay dhaqaaqday. haddee ku dhaafta xatir dhaqaaqi labaad fiir meeqay dhaqaaqda dhaqaaqi labaad 5x. marka there's coino fara badan dhaqaaq labaad sameynayo, dhaqaaq saddexaad sameynayo oo riskooda u yaryahay aad ka qaraaban kartaa. 1x waa ka heli kartaa suuqii maalinlaya. hadda fiir there's another coin dhaqaaq fiican sameysay. listiga goes on. ardayda waxaan hadda waa baroyaa soo life trade sameynayaan waa kuwana coins kaleeto
so many coin intaasoo eg sameeyeen lama soo koobi karo waa maanta le waay ma ahan maalin kaleeto today kooda duhur ma fiir waa kaasa may 7 coinkan hadhihin cabdale coin hore u jiro waaye no maanta uu soo baxay today waa everyday coinas la soo baxo from nothing to what 35x uu sameey coinkani from nothing to almost like 2 million plus ma fahmino haddii aragtidii kuwaad ee ku dhaaftay anaga wala tracking aan isticmaalnaa iyo Twitter tracking all the way waa kaasa even qaybta haddaa kasoo dhacday 7x even 1x haddaa ka heshid maxaa kaa galay wala tracking iyo Twitter tracking aan isticmaalnaa kuwan coinaka riski maahan maalin ilaa kanta coinna soo baxo 1x kaada waa ka raadsan kartaa laakiin soomaalida waxaa waaye waxbarashada laguma karo waxbarta waqti geliya waa xalay ka tahay hadda coinkan oo kale wuu soo baxay wuu daatay dhaqaaq kuwaad hadduu ku dhaafo kii labaad oo kale fiiri 2x ku dhawaad waay kadibna waa lagu kala yaaca wuu dhintay so marke waxaasi wax ka badan halala socdo sidoo kale stock marketka updateyadiisa waan bilaabay oo hadda tusaale oo kaleeto practical demo dadka raba inay stock marketka trade gareeyaan ETF-yada sidoo kale iyo optionska laakiin hadda badanaa waxaan xooga saaraa stock marketka ETF-yada waan ognahay criptada ETF-ya badanaa jiro tusaale oo kale investing.com oo kale waa tegi kartaa ETF-yada cryptocurrency-ga waa fiirin kartaa tusaale oo kale shirkadaha waaweyn so hadda investing.com haddaan dhaho investment ma rabi investing.com hadda haddaan tago investing.com haddaan tago guys muuqaalka marabo inuu dheeraado investing.com haddaan tago waxaa jiro ETF fara badan suuqaana criptada hadda hoos haddaa u baxo anta cryptocurrency-ga waxaa jiro ETF badan so soomaalida way ka hadlaan laakiin adigna iibsan kartid so qofkii ugu horreeyay soomaali oo dadka baraa noqon doona ETF-yada qaabka loo iibsado buy sell loo dhaho looga faa'iidaysto maxaa kaloo ka faa'iidaysan kartaa cabsida suuqa ka jirto damo cabsi badan ee ka jirto dhanka cryptocurrency-ga ee cabsideeda too much tahay ama ay gudud tahay lacaga badanaa soo baxo mimcoin waa ka faa'iidaysan kartaa stock marketkana sidoo kale fear and greed indexka maxaa kaloo ka faa'iidaysan kartaa haddii shirkado badan iyo dowlado badan ay kusoo biiraan bitcoin-ka literally waa tirigareyn kartaa maanta microstrategy hadday wax badan iibsadaan there is a meme coin soo baxo waa ka faa'iidaysan kartaa any shirkad maanta hadday iibsato BTC there is a meme coin waxaa ka faa'iidaysan kartaa new projects hadda projectkan oo kale 20 milyan aa ka soo raacnay Tedio mara markii hore Tedio ka galnay wuu daatay DC aa ku sameynay haddana halkaan uu maraya groupkan waa soo geli ardayda waa la wadaagay waa idala share gareyn karaa waa la wadaagay soo marka new projectyada ka faa'iidaysan kartaa on fiican qaarkood waa meme coin kan kale 17 19 ka soo raacnay halkaan kala maraya waa meme coin waay qaarkood projecti fiican waay soo marka waxaas oo dhan ka faa'iidaysan kartaa there so many arawan ina idila wadaaga projectyada qaar ardayda ala share gareynayay laakiin waa ka faa'iidaysan kartaan waxaa kaloo ka faa'iidaysan kartaa investmentkaada long term ka gashay haddii DCA-ga ku dhaqaaqay hadda lacagahan oo kale fiiri taawo kale faa'iida ku fadhinaa fartcoin faa'iida ku fadhinaa virtual faa'iida ku fadhisanaa hyperliquid $9 ka soo galna faa'iida ku fadhinaa suwi sidoo kale faa'iido stacks bitcoin layer 2 faa'iida ku fadhinaa tram waxaan ka soo galnay $7 faa'iida ku fadhinaa wallcoin sidoo kale sentiala ka soo galnay quant 70 xoogaa ka soo galnay soo marka lacagahan dhan faa'iida ku fadhinaa ayagana faa'iido kale waa suuqi taalo intaas markaan ka baxo aan ka gudbo aan idila wadaago stocking aan ka hadlo mimcoindii active trader aa noqon karta adigoo dee Twitter tracking isticmaala iyo wallet tracking maxaa kaleeto waxyaabaha kale aad ka faa'iidaysan karta maxaa ka mid ah suuq haddaa unsoo noqdo labo newsyadii whatever news soo baxo marketka coinanaa soo baxo so newsyadii inaa ka warqabti qof news trader aa noqon kartaa ecosystemyada kala duwan haddii ethereum oo kor u kaco stakingkii rewardka la helayay aynoo soomaalida badanaa staking ma yaqaanaan keliya anaa lii sugaya cabdalla wey faanna ma fiicno dad qaaraa dhihi doona ustaadi waa faan usaa faan maahan ilaa haddeertan qof staking 10 ka sameey ma jiro anaa lii sugaya last year arab inaa ka sameey waa mashquulay haddaa ka sameynayaa so marka anigaan ka hadlalaya marketka la arki doona insha allah labo stakingkii oo kale ka faa'iidaysan kartaa newsyadii dowladaha stateyada hadda New Hampshire oo kaleeto news fiicanaa kasoo baxay meme coin ha kasoo baxaayo state hadda news aragti meme coin ha kasoo baxaayo hadda adoo meelaha wareegaya Arizona something maqashid approve gareyso there is a meme coin oo soo baxaya ka faa'iidaysan kartaa Texas haddaa maqashid something good news kasoo baxo there is a meme coin at the same time newskaasna wuxuu anfacayaa suuqii laba newsyada kale maxaa ka mid ah BlackRock ninka u qaabilsan head of digital asset-ka
ayaa bitcoin conference u socdo. yaa soomaali u socda anile cabdalla wey, yaa kaloo vegas u socdo nobody. bitcoin conference ninka behind the scene kala shaqeynayo, qofka u socdan waa aniga. bishaan u dhacaya. maxaa kaloo good news ah, trump oo birito major news ka hadli doono. already ardayda way la socdaan. qofkaan ogeyne groupka ardayda tag, haddii kaleetan aniga luuq isu weydiiyo wax birita I don't want public inaan la wadaago. maxaa kaloo tagi kartaa coinbase-kaaga. coinbase liter wuxuu ku sameeyey lacagaha gain risk aad arki kartaa dhaqaaqa sameynayo, iyo kuwa potentialka leh oo la iibsan karo, oo buy uu ku leeyahay. So marka buy ratio-ga ayuu fursado ku siinaya. Coina fiicana ka dhex heli kartaa. Sida hadda Worldcoin oo kaleeto aniga waa ku sameyn lahay, DCA, Aptos oo kale waa ku sameyn lahay, Zora oo kaleeto waa ka faa'iideysana coinkaasi. At the same time mar labaadna waa geli lahayni. Zora dadkii ugu horreeyay oo inta lasoo shaacina ka faa'iideystaan lahayni. waxaasoo dhan inaad ka faa'iideysan kartaa. Opportunity-ga meeshay taalaa. Coinkan oo kale hadda hadayaan Twitterka idiin soo geliyey bahalkii Telegram, markii lasoo laanjigaray waa ka faa'iideysan kartaa. Coina kale laga soo dabadiri doona waa ka faa'iideysanaysaa. asagaa soo baxay, coina kale soo baxay waa ka faa'iideysanaysaa. Robinhood news ka soo baxay European-ka maho, haddii la ansixiyo European-ka ay toos ka dhigaan, there is a meme coin ka soo baxay for sure, waa ka faa'iideysan kartaa. suuquna wuu u fiican tahay. Vivek maantay waxay shaaciyeen inay announce gareynayaan inay public noqdaan. hadday public noqdaan then meme coin soo baxay, waana good news for the crypto. suuq u wanaagsan waay. So marka maxaa kaloo good news ah, Solana ecosystem hadduu dhaqaaqo, that means more meme coins, moo lacago cusub, moo new projects ee ayadii waxyaabaha kategoriyada kala duwan, moo shirkado badan oo ay soo galaan suuqani, moo BTC kor aadayso, moo he BTC oo kor aadayso. So marka guys, suuqan opportunity-ga marbu meesha way taalaa. lacagaha soo baxo, mimkooyinda soo baxo. hadda tusaale oo kale lacagtan rebranding ay samaysay. rebranding maxaa loola jeedaa? waxay kasoo tagtay EOS oo u bedeli doonta on May 14. inaad ka warqabtid isbedelkaas dhacaayo, waxaa dhici doono coino badan oo meme coin ah oo foodo ah inay soo baxaan, inaad ka faa'iidaysatid. rebranding wax ceeb maahan. ana xatir hadda rebranding badanaa sameeyey, isbedel badanaa sameeyey, waxyaaba badanaa qabanaya. waxyaabaha qabanaa waxaa kamid ah inaan kusoo darno kale stock marketkii, dadkii la baro stock market, qaabka stock marketka u shaqeeyo. qofkii xiiseena xatir wuu nala soo xiriiri karaa. qofkii raba inuu stock market barto, waa maxay stock market. soomaalida 2020gii cryptocurrency ma aqoonin. hadda waxaan ku jirnaa 2025 May ku jirnaa. So 2025 May ku jirnaa. 2020gii 4 sano ka hor, 5 sano iska dheh, soomaalida badanaa ma aqoonin wax badan cryptada. way ku adkeyd Binance-ga, ICO-yada, lacagaha cusub, IDO-yada, airdrop-yada way ku cusbaayeen, iyo NFT-yada 2021kii markay soo baxayeen lagu kacsanaay way ku adkeyd. maantana qof walbaa crypto ku jiro. aniga hadda cabdalla waxaan bilaabay 2025 stock market inaan dadka baro. So marka maanta dad badan hadda soo saaray biri, dad badan oo la macalimiina la arki doonaa. Soomaalidu way fahantay qof walba stock market ka tirigelinayo, shirkadihii waaweynay Apple, Facebook, Tesla in shirkad. So haddaad doonaysa inaad stock market ka baratid, please nala soo xiriir, kaala baro. aday dan kugu jirta stocka iyo cryptada inaad baratid, qof waxaa noqonaysaa la celin kara. cilmigana mar walba waa ku faa'iideysaa. maxaa yeelay asadyada maanta dunida ka jira haddaan fiirino, assets by market cap haddaan dhahno, assets by market cap haddaan dhahno, waxa ugu badan waxay ku jirto waa lacagta ugu badan waa stock marketka. stock marketka waa wuxuu xukmaa suuqani cryptada. crypto waxaa libaax u ah BTC. BTC-na market capkeeda xateer ma dhamo 2 ama 3 trillion. So marka imagine stock marketkii shirkadaha ugu yarnay, shirkadaha qaar oo kale haddaan fiirino, Tesla oo kale ee 1 trillion ku dhowdahay, Meta oo kale, Facebook oo 1.5 uu yahay. imagine intaas oo company oo shirkadood baa tirir gareyn kartaa, buy sell dhihi kartaa. qaarkood pricekooda waa raqiis, qaarkood waa $100, qaarkood waa 500, qaarkood waa 2,000, qaarkood waa iska sentiyaal waaye, qaarkood waxaan ku dhaha waa sida crypto kale, qaarkood $10. cryptada something cryptocurrency maanta haddaan fiirino, coinanka qaar waa hadda tusaale kale Ethereum waa 1 iyo something, BNB waa 500, Solana waa 151, Cardano kale sentiyaal waaye, Subi kale waa $3, Cardano kale waa $14, Avalanche kale waa $20, something shirkadaha qaarkood hadda price ka fiirino $316, $70, $1. so many shirkadaha jiro. cilmigaasaa baranaysaa, dhaqaalaha Mareykanka, dowladda Mareykanka. waxaa noqonaysaa dadka ugu horeeya Soomaali 2025 stock marketka barto, gacantooda ay fadhiisato. So just adiga iska qiyaas, Soomaali badan haddii 2025 stock marketka barato, meesha ay joogi doonto 2029 hadduu ilaahna gaarsiiyo. imagine Soomaali meesha stock marketka joogi doonto, waxay noqon doontaa qof walba inuu trade gareeyo oo taxliiliyo.
kheyr baa idinkaga tegay insha allah. Please telegramka muuqaalka idiin soo gelina cabdalla wey, share garee, waxyaaba badan aa idinla wadaagi doonaa insha allah. A lot of free information, seminaaro badan waxaa idiin qaban doonaa free ah, kriptada, meme coin trading, coinaka maalin walba soo baxo, meme coinada qaabka looga faa'iidaysto iyo waxyaabo fara badan. Wixii su-aal ahna waa isla joognaa. Kheyr baa idinkaga tegay, asxaabta gaarsiiya, wax badan ha loo diyaar garoobo, khaasatan memeska iyo new projectyada iyo xaaladda suuqa. Waa muhiim qofku inuu ka warqabo xaaladda suuqa, wax walbaa ka dhaco. Stockska sidoo kale, waxyaabo shirkado badan oo trendina jiro oo cirka ku jiro. Cryptocurrency-gana sidoo kaleeto, interest rate-ka dadka inta ugu badan xataa waxay dhaheen BTC maalmaha soo socdo ama bilaha soo socda haddii interest rate-ka la jaro ay gaari doonto maxaa dhahdaa 200 plus. Hadda meesha ay ka marayso 90 iyo xoogo, so boqol bay maanta soo yara taabatay, so boqolka hadda wax yar baa ka dhiman. haddii 100 plus gaarto, wax qabanaya malaha, suuqan cirku aadi doonaa. Trumpna haddii waxyaabaha uu ku socdo conferencigi bitcoin waa soo socdaa, bitcoin conference, BTC wax celinaya malahan. Markaas dadkii ani dhihi jira cabdalow Trump waa taageerta, suuqii hoos imaaday, maanta aamini doonaan because of portfoliohina DC a ku sameynay. That's when markii suuq uu kor aado, anagana we gonna sell everything. Kheyr baa idinkaga tegay, assalaamu calaykum.